aniga oo Axmed Barkad Ubsiye ka san golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland xusuusan xisbiga kulmiyana ah waxaan halkan maanta ka cadeynayaa oo ku daahfuraya sir culus oo ku duugan baasaboorka ay Soomaaliland soo sameysay ee baasaboorka waxa ku sawiran jildigiisa saddex sawir baa ku sawiran mid waxa weyn astaanta qaranka midna waxa weyn maapka Soomaaliland iyo wad marka aad u fiirsato ee maapka Soomaaliland adeegto waxa ku duugan oo ku sameysan wasaaradda dakhliga kala xadeyn ay sameysay kala xadeyn gobolada oo ay sameysay gobollo badan oo Soomaaliya ayaa meesha ku yaal gobollo aan hore aynaan arag iyo kuwa jirayba magacyadooda waxa weeyaan markaan soo qaadano saddexda gobol xaggan ugu soo xiga galbeedka gobolka Sel iyo Juhud ku xeeran baa loo gooyay gobolka Gabiley markaan soo qaadano gobolka Gabiley waxa laga soo bilaabay oo la mariyay xariiqa dila dusheeda markuu maray halkaas hoos looga dhaadhiciyay ilaa garbadada markuu joogaa xogaa bari loo laxday haddana waxa loo weeciyay waqooyiga duleedka Lughaya ayaabuu badda ka galay dhinaca kale waxa weeyaan magaalada Hargeysa waxa loo qeyday area loo qeyday inta kale ee gobolkii Maroodijeex qaybta galbeedka Hargeysa ka ahayd waxa loo gooyay gobolka Gabiley halka waxa ka soo noqdaa Farweyne Hargeysa hoos uga dhaca ilaa Bulaxaar ayaabuu u jaray xagga Gabiley oo gobolkii Saaxil ka soo goostay waxa kale oo ama kaagiyo fijics igu noqotay markaan arkay gobol cusub oo laga sameeyay bariga Hargeysa gobolkaasi oo bariga Hargeysa laga sameeyay gobolkii Beledweyne waxa in yaroo square ah ayaa loo jaray xagga hoose gobolka Gabiley Farweyne ayaa lagala dhigay xad halkaas isla Hargeysa laga dhaadhiciyay waxa sida halka ka galay iyo xadkii ay Gabiley ay wadaagayeen oo Bulaxaar halka ka galay dhinaca barigana berbera dusheedii ayaabuu isna badda ka galay waxyaabaha aan aad iyo aad aan qaadan waayay ee aan la yaabay wax kamid ah gobolka cusub ee isna berbera qaybta ka goostay ma bariga inkastoo aad u aqoon waxa weeyaan bariga waxaad arkaysaa in gobolkii Sanaag in yar oo laynaho xagga dama oo degmada dhaxara loo gooyay inta ma Puntland baa la siinayaa mise waxa laga dhigaa gobol u leeyahay Warsangeliyo dhahar maadaama baran iyo Xingalool iyo Laas Qore iyo la soo raaciyay gobolkii Sanaag teeda kale waxa la imka saamay qaybsi baa la raadinayaa halka waxa ka soo hormaray dhul qaybsi baa ka soo hormaray la isdhaxay maxaa saami la isku ogolaan haddaan dhulkiiba la isku ogolay marka waxa weeyaan waxaan leeyahay war salaadiinta waxgaradka aqoon-yahanada wasiirada dhammaan dadka bulshada Soomaaliland waxa leeyahay arrinkaasi baasaboorka la ila eego la arko oo waxa keenay in baasaboorkeena lagu sameeyo khariidada caynkaasi maxay tahay waxa weeyaan dadka in laga sii dhaadhiciyo oo wasaaradda dakhliga marka ay sameyn doonto kala xadeynta inuu sidaa noqon doono ayaa meesha ka cad himilada maartay waxa weeyaan dad badan ay tiigsanayaan baasaboorkii waa ka waxa ku sawiran saddexda sawir ee aan sheegay ayaa ku sawiran hala arko hala eego bal nin walba kii electronic doona madaxweyne waxa la arkaasi waxa laga qabto wasalaam في النقطة عود ما أرهات عن إن السير مويديو قرية سموك باغدان شعبك وقراعنا جرى الساعة في النقطة عود فرس ما أرهات عن إن السير مويديو قرية سموك باغدان شعبك وقراعنا tahay sirbay cidid leedahay sidaan waan naqaanaa sidaanna waanu garanaa hadday gacan tusaan tahay